واحد فرد علم لله واهب النعم. طاح المطر بذا الله كسر حويات الله. طاح المطر بذا الله. طاح المطر بذا الله. طاح المطر بذا الله كسر حويات الله. طاح المطر بذا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. horta waxaan ahay nin la isku haysto, waayo anoo Soomaali la hadlaya ayaa la yidhi Ingiriisi ku hadal. markaan Ingiriisi ku hadlana Soomaalidii baa ay qabsatay. dadkii waaweynaa baa yidhahdeen maxaad carruurta af Ingiriisi ugula hadlaysaa, maxaad afkii hooyo ugu canqarin weyday, aad ugula hadli weyday. marka Ingiriisi markaan Soomaali ku hadlana ku yaraaba halkaa inta yacan bay odhanayaan how come you're not speaking English. marka waxaan joogaa dee laba wadiiq baan kala ayaan taaganho marka dhinaca laaliya dhinacan u baydho garan maayo maanta. marka let us see, should I speak English or Somali? bal gacanta taaga. wixii Ingiriisi doonayo gacanta taaga. wixii Soomaali ku doodayona oo saylada u tagayona bal gacanta taaga. horta waa aragtaano sidaasoo madaxa la iskula jira meeshan tagawa. marka haddii aan idin barxiyo ka warrama. Is that okay if I mix things? That's cool, right? All right. Now, I was asked to speak about 7 highly effective methods of a Muslim. waxaynu doonu 7 dariiqadood ama 7 wadiiq ama 7 arrimood oo ku saabsan qofka muslimka ah that he can be effective. marka dadka wax ku bedeli karo ama that he can deal with the people. 7 methods marka. These 7 methods you can use for your family, you can use for work, you can use for da'wah, you can use for your children and wife, you can use it meel walbaad ku isticmaali kartaa if you're able to master them. haddii 7 aad si wanaagsan u fahamtid. First of the 7 things, laga yaabaa inaad ka fakiraysaan arrimo waaweyn, laakiin waa mas'ala diiniya wa cilmiyana, sharciya, cilmiya at the same time. Scientifically waa loo approved, it's been approved, and Islamically is being approved in a this is the most effective ways. 7 ugu horeysa قال العلماء الابتسامة. qofku inuu qoslo, smiling. The most powerful thing, waxa ugu xooga weyn ee dadka lagula macaamili kara waxa weeyaan ibtisaama. inuu qofku markuu qofku uu qof kale la kulmo inuu u qoslo. Now, see, in the West, it became a culture. We see in a Muslim, when they're walking by you, they say, hi, or good morning, sir, good evening, and they smile. When you're flying and the air hostess comes to you, can I get you something? And she's smiling. Well, he's smiling.
ابتسامته يعني إنه قفك وهرتاجين هي أقصله. Well, it is the most powerful thing that you can change the component of the person. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني هذا وراك الله كلنتيد قفك مسلم كما كده الله كلنتيد and you smile on their face. You meet a Muslim brothers for the brothers and sisters for the sisters. إن حبلاو دولة عادية المدن هذا ودات كيف نقول حبلاو قصلة تحتاجوا ما هي نعاوة. وحن أشهد when the guys meet guys, then they should smile. And when the girls are meeting girls, then they can smile. They can say Salaam alaikum because Nabi Guhul wa tabassumaka is smiling on the face of your Muslim brother or sister. Sadaqah. You're getting a charity. When you smile, what do you mean? How do the qofku ku fahmaya? When you smile, you're telling the person, I like you. You make me happy. I want to see you more often. I enjoy seeing you. And then the person in return, he will smile back. And that's why, if you are giving da'wah, if you're talking to a friend, if you try to convince someone to do a certain thing, then the best thing and the most effective way is to do al-ibtisama. Not, qasr illa damanka goes arkayo. I don't mean you just, to laugh out loud. I'm talking about for a person to speak and then smile. Because the Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as Ibn al-Qayyim mentioned, قال كان جبل ضحكه التبسم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam markuu qoslo, he used to smile. يعني هو سبحانه بو قصر لكن قصر قهقه له مو أهين. قال بل كله تبسم. انت سبضنا بو قصدي شري قصر كحوي وابتسامة ده. قال وإذا بالغ في التبسم قال ظهرت نواجذه. الكيسة انت جوسه وضم بيا يا الأركش النبي صلى الله عليه وسلم مركو ده أبو مركو قصدي شري when he's happy. So the first thing وحوي يقفكو إنه قصله. قالوا محيدا هذا. This is one of the British quotes. They said, smiling is your way to success. Smiling is your way to success. If you want to be a successful person, then you have to smile. Now, in America, they had a course that they teach people who are dealing other people over the phone to smile over the phone. يعني قف تليفون قدرية شركة تليفون قدرية قفك التليفون كجوابه يا وحنا لو أمر يا إنه قصر مركو قفك الله الله وابتسامة سمايه. وايو هذا كاغو يسبدليه السلوك كاغو يسبدليه. سي شركين وعينك إنه أفردينه يا عينك إنه قامه ولا دقاتشينه يصير إن سنياشة أما ولا دقاتشينه وجه كان حركات الوجه كل واحد كسر يستنتهي علم إلهي نسيه سبحانه وتعالى. قفك هذا السيد أفرديه. If a person comes forward and he sits like this, that person he is ready for confrontation. He's ready for aggressiveness. يعني تقال بدون قفك عنك أصف فريسة. قفك لكن دب أفرديه. It means he's relaxed, he's calm, he's cool, he's willing to negotiate. That's what they call body language. You can understand. If you're applying for a job and your boss is sitting like this, or the man who's interviewing you is sitting like this, you should know you're not doing great. But if he sits back, that means he's happy with you or she's happy with you. Smiling also expresses a certain level of a smile. هدو مركا قاسي اسمعي وصو قصو مركبة ما شاء الله. You're good state. لكن هدو كله والله عدايو. And it just show you a little bit. That means he is not that great and he's not too happy for you. Again, another thing they said, how can I hate
a person who smiles at my face. وحكولين سيدابان أنعى قف يقصليا قف يقصليا سيدابان أنعى كرا. It's so true. إمك مثلا هديت إيتمادي you want to fight with me. تقال بعد دوني ساي واحد دوني سايين لأنك سعيد راجع أيام ما أنت مدحس تجلس عنه ده وصود يرجرود. إسلام وقرب يسوقات المرك أيامها هني وصود يرجرودي ويمادي. أديكي وضو قصص وقت مكان. مركز قصصي. What can they do to you? خلاص. It's done. لكن قف أدون سي أكسين كوع حناقصين هاي أما كوع عريسين هاي أو كوع صوص عدا هدنا وجهك أدو دوفتين ده مركز ما تحلس لجلية مركز بيحكوا كليين how can I hate a person who smiles at my face عن كمان إنه عقف قصلية لا يمكن there is no way إنه قفك مركز عدقاله قادر أما تكحناقدي Buddy, I know you Canada. This is what happened. It was a funny but a unique story. There's a coffee shop called Tim Hortons. And this place, you know, you line up for your coffee and your breakfast. And then while I'm sitting, while I'm standing in line, إن أنا كقري welcome to Islam شعر بانقشنا ما كان تيشيرت بانقشنا خميس ما نحدني هنا وحلال ولادين مرمى سكتوران خميس يكون في سكتوران أي سكتشين سكحدا ما سكحلال مركا قاركود مركا هورنا استغفر الله إسلام وحدين الله هيا ولا ما توداتك مرمى ولا سكحدا ولا سك أوكي تيشيرت بانحدنا هاي welcome to Islam ويا ساسو إيسو أجي he just turned مركو أركيبو حناق ما قصدي I hate Muslims مسلمين توان عبا مركا وقرح سبتمر إلا باس سميسان عين كاسا سميسان دمركا أبي يزقريسان أفر دمرا قرستان قال هذا متشعلدين he just went on and on and on and on how we hate them and how terrible we are. And then he conclude his, his fight, verbal fight. And what kind of man is this man that you follow, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And then he brought the issue of him marrying Aisha radiyallahu anha. Why did he marry Aisha? And then I'm listening. When he was talking, I didn't say anything. I did not interrupt him. I did not say anything. When I start talking, marka he's frowning. Yani wajgiisu wuu urursan yihiin dagaal buu sugayaa. Dadka gaalada laga horeeya ku iga dambeeyaan, they pretend that they're not listening. Kuma dhinac bay eegayaan because it's very uncomfortable. Meel lagu qabsado coffee shop. When I start talking, I smile. When I smile, wajigii aynka hay cabuus qam tariira aha horta wuu furfurmay. De wuxuu saw ku dhiibaya mogti. Ana waan qaslay. Markaan u qaslay mid ka dambeeyay asaga, ka horeeyay asaga. Oo kalbana soo yara jallacayda ka isha lagu xadayay. Ayaa markaa arkay inaan qaslay, ayuu soo wada jeestay warta. Markaas baan soo dhageysan labadan. Su'aali baan uga jawaabay markaa step by step. Okay. September 11th could let me explain to you. So I quoted all the issues, all the statements and the incidents and the quotes of the non-Muslims, not the Muslims. marka wax sax ku tiraahdaa war heer anu kabahay xitaa kabaha markan masaajiga soo galo ma hagaajin naqaano. Imagine, planning 4 international airports. لكن كمان واحد حسب Somalida فضحضين مسلمين تسك عام. I gave the information bit by bit. عين كاسوس تاجنا. He just كمية مركا يرد شيء. One issue at a time. Inside of me مركو هاد لي ودي النبي عاي وعاش عاي ومسلمين تعاي. هوست نار هيجا بحيوان قرحيبا.
لكن had I express عرضي iyo de wuxuu sameeyay sidoo ila macaamilo imuu dhageysteen wuxuu oran lahaa f you iska dhaqaaqi lahaa laakiin markay when I smile that I can take this he listen ninkii waxaan wada taagnay almost 2 hours wada sheekaysan 2 hours kaafigi wada qaadanay ana ka bixiyay kaafigi I paid the coffee. Some Muslims are very generous. Let me introduce you this. Kaafigan ka bixiyay, sandwichkan ka bixiyay, dabadii baanu istaagnay, dabadii baanu saacad ku sii hadlaynay, waanu sheekaysan. All of that. Markay dambe markay sheeganay, markay gacanta iga salaanta ka qaaday, uu gilgilayay. Thank you very much. Thank you very much. Muslim muu noqonin, but I'm sure. Hadii markaan ku raado war adna if you and this and aytamo. wax allaale iyo wuxuu ka faa'iideysan lahaa aan ka faa'iideysan lahaa ma jirin laakiin markii dambe wuu isbedelay wuxuu islaamkii dhinac kale ka arkay markaa he realized it's so true waxaan ku logically for international airport is it logic none of them xitaa la yiraahdo mid baa la qabtay ilaa saddex ay mid fashilanto saddex ay they succeed I understand 19 Muslims ku dhintay diyaarad ku dhintay all of them were terrorists all of them were male not a single female while we have 9 million Muslims in the States and we travel left and right how marka asagiba he had to defend innaka marka in الدفاع it doesn't make any sense علماء waxay yiraahdaan هناك سحر حلال وسحر حرام سحر هو لaba nooc bay yiraahdeen سحر حرام iyo mid xalaala one that is lawful magic that is lawful and magic that is not lawful unlawful magic سحرku in ogno wada xaraan laakiin waa maxay ka xalaashi wuxuu noqon karaa قال علماء السلف waxay yiraahdeen tabassumuka fi wujuh الرجال إذا marka dadka hor taagan tahay for you to smile تبسمك في وجوه الرجال نبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فربضان بلغ السورية أحاديث فربضان وحكم ذا يعني نبي في رسول صلى الله عليه وسلم smile يعني وقفك والله عدايا وسوت بشوشة وحول بو بدل جري نبي النبي هو يمي صلى الله عليه وسلم هكذا وقفت قال أعطيني من مال الله ليس المال مالك ولا مال أبيك حولها إله وحيقسي يقول حولها هي ماها حولها هي ما حوله أبهانا ما هي the wealth is not yours and it's not your father's wealth give me some wealth وبدو وأعرابي عمر بن الخطاب نسيت انتو السيدة وغير الساري he took his sword فقال يا رسول الله دعني أقطع عنق عن كوكس يدا اللهم let me kill him فقال دعه يا عمر اسكذا ابن عمر مركا النبي هو وكل شانكني he's calling the messengers of Allah صلى الله عليه وسلم so then the messenger of Allah تبسم وقصر قال الصدق ربما شكت رن أيات شكت المال ما حولها يجي معها رن بات شكت ده النبي صلى الله عليه وسلم عمر سيفتي سوى الديار خالد بن الوليد والديار إن لك الجوست لك نكاد لجوجويا شن مربيك وقادم الصحابة ده لكن النبي يقول هو نفتح والله حولها يجي معها عمر وزيادة أعطيه نينك هو النقضي صلى الله رضي الله عنه أنتم مسلمون النقضي تذكروا يلي يا أيها الناس أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر في أحد الروايات نبي محمد وحب بحياه he gives a wealth as though he fears no poverty فقر كبق ما حق النبي أوقحها ولا صوت قحا Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in one of the narrations, while the Sahaba of Rasulullah and Messenger of Allah were traveling for jihad,
at the time of Quraysh and all this. And then the Messenger of Allah, he rested under a tree by himself. Geed buu hoos fadhiistay. Saxaabadii nabigana way kala fogfogi, mid halkaas uu fadhiyaa, mid halkan buu fadhiyaa, mid xaggan buu fadhiyaa, mid walba nabiga ma arkayaan. Marka nin reer miyiga oo badawa oo Arabia oo nabiga daba socdo gaadayay, or was waiting to kill the Messenger of Allah, ayah he walked into under the tree where the Messenger of Allah was. Safety will qada, he took the sword, he pointed to the Messenger of Allah. قال يا محمد من يحميك ياكو إلاني يقول يا محمد ياكو إلاني كمان يايكا علينا. Who can protect you today? The Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم قال الله إله بيكا إلاني. Allah is going to protect me. Allah. وكذلك مرة عمر وخالد ويسوع قال لا. He didn't call for the Sahaba. He said Allah will protect me. Ninka gacanta siba garitay seefti baa ka dhacday. Seefti baa ka dhacday. The Messenger of Allah, he took the sword back. He pointed to the man. Ninka wuu ku jeeday markaasuu yiri ya Arabi ya ika celinaya. Ya ika celinaya. Markaasuu yiri ya Muhammad isaamxu isiida. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuu qoslay wuu ismaa seefti wuu ka dhigay. Saxaabadu wuu yeeray. Saxaabadu way caynka saa dhacday. Ninkii nabiga doonay inuu dilo alayhi salatu wassalaam, nabiga yiri muslim ma muslimo ya rasuul ya Muhammad ma muslimiyo. Laakiin waxaan kugu ballan qaaday, I will never fight you ever again. I will never fight you. The man who came to assassinate the Messenger of Allah ayaa kula weliga ya Allah kulama dagaalamayo, cadawga ma noqonayo, wuu iska baxay. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu dadka ku cilaajin jiray oo ku soo dhaweyn jiray oo diinta islaamka la qaadan jiray waa because waxyaabo yar oo simple uu sameyn jiray waxa kamida ibtisaamada ama tabassumka. Talabaad toddobayn ka hadlayna maanta talabaad waxaan la yiraahdo gentleness ama rifq. jiljiray inuu qofku jilay maaha nacasnimo maaha jiljiray nacasnimo maaha, laakiin waxa weeye inuu qofku uu raxmad yeesho. waxaan nin magaaladeeda degan ayaa markuu masaajidka yimaado waa nin wanaagsan uu qoslaya, guriga markuu tagana waa dibi ma sha Allah. marka islaantiyo de ashkatoonaysa caruurtiyo sida bisadaha mar guriga soo gala ayay wada yaacaan oo mid maqsinka gala mid balokanaha istaaga ilaa inta maqsinkiisa galaya. markaas islaantiyo caruurtu way yidhi ninkan laga qabto, ninkan laga qabto. war hebel soo digeen wanaagsan markaad masaajidka joogtid ma sha Allah rahiimka yararka halka ku buuqaya ku eryanaya they don't bother you. سكولي وار ما يمير دمرك سماها ولي الله هو قسم كل دمرك ولي هو قسم ويه أكثر ير كلام مسؤولي مياد ما قلبه ما هذا الكهك تستيد دبوده كتسان هو دواني يعني الرفقي رحمة إياه he just put it aside and this is not how it should be. marka umana jeedo I don't mean يعني نعس نقود دررك كاداتو but I mean يعني عمر بن الخطاب محور جري لا تكن يبسا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. يعني he said don't be too stiff that when people try to bend you they will break you, and don't be too يعني soft that they can squeeze you, but be in the middle. حنقولنا مركا الرفق ومطلوب. The person has to be قف رحمة له gentle kind نبي صلى الله عليه وسلم الرفق أطلق هذلي دور نوعد بين كهذنا الرفق مع الأهل غيرك. عائشة رضي الله عنها وحترين نبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط. ولقي
his entire life, he never had a child, he never had a woman. The only time that he will raise his hand, it is jihad fi sabilillah. When he is fighting with the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. Rare custom is different. Especially with the wife. Especially with the wife. Children, usually as men, we love our children. Abanimadu mugti wa rahmad. Marka carruurta waynu u jiljilicsanno, waynu la ciyaaraayo, waynu rogroganaayo, waynu rogrogtaano, waynu yaraa. Lakin had you go, we are a little bit harsh with women, with our wives. Dumarkan ku yar adagna ku yar qallafsanna. And it should be other way around. Umar bin Khattab wuxuu oran jiray, kun bayna yaday imra'atak kas-sabi. Wuxuu jiray gabadhaada marka guriga tagtid sidii ilmo yar ula kula macaamusho. Yani ha ku dirdirto, ha kugu qayliso, iska aamo, u sabir, u dulqaado. Hadday ku maagto, jazakallahu khayr le. Hadday kugu qayliso, Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakeeyo, u ducee. One of the narration, Umar bin Khattab, warta sheekaysta laga madaalo. Umar bin Khattab wuxuu qof adag. Waa taqaan adag. Yani really is rough waha. dadkuna way ka biqi jireen, saxaabadu ka wada biqi jireen. waxaan ka intusay cankan looga biqi jiray Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wuxuu maqlay gabadh ninkeedu ku maqan yahay jihaad ayaa uuraysatay. ninkeedu jihaad buu ku maqan. Umar bin Khattabna shaqadiisa waxay ahayd dumarkan laga maqan yahay inuu daryeelade uu markaa ilaaliyo oo xaalkooda eego oo ka warhayo. waxa la yiri hebel gabadhiisu uur bay leedahay. يعني هو رأيت مركب إذا الإنترنت ما يشيرين سكايب ما يشيرين how the only way يكون رأيت there's no Skype, there's nothing وحوية مال بك دعوة أراد منه لكن ده only explanation كم يقول يربوين عسكري جاب وتك جاب لي عمر بن الخطاب كدونية المي بسوري ده وأنا حين كبق عمر بن الخطاب المي ما صار داعي ساس عمر لو قبق يشري مركانين قبل لي سيحكى حيصو أي رفانتي ونحن نحن بحنا 911 generation ما نبحنا ومركو هذا نحن قامو 911 عسكري ما فوق يريا بركو هاي حادونسا بدي ورا marka waxaan u bixinay one generation ma leedahay waa dumarkii ka soo galay wadankii education badan male waxay ka taqaanaa in my husband hitting me ninkii bay diiday marka wala soo yaaca marka asna intaan booliska soo gaadhin wadaaqada ka sii booda wallahi waa caan anagu keenada xawaalid kaga haynaa iska aamusa marka taasoo kale ahay marka Umar bin Khattab bari wareede maxaad samaysaa waxaan leeyahay ninkii maxaad samaysaa wuxuu wallahi idan Umar ahayn ka saari mayso mashkaladan soo Umar buu tagay radiyallahu anhu Umar baa ki garaacay markuu albaabkii uu garaacay ayaa wuxuu maqlay gabadhii Umar oo leh war bilaa macbad taagantay albaabka fur ay si ku qaylinaysa ninkii baa silmala waxbaad qalas u maqashay bal u yaraka hadi albaabkii garaacay haddana Umar oo leeriyay oo arkay miskiinkii arka halka sheekadu maraso ayuu yiri gow abina celi meesha wiska laabtay markuu albaabka sidaa u furay Umar bin Khattab markuu albaabka soo laabtay Umar bin Khattab albaabkii furay فقال ما لك يا فلان حاكو دعي فلان هبلو ما قال يا أمير المؤمنين محمد جزاك الله خير قال لا ما لك حدثني قال يا أمير المؤمنين لا عليك كور ورث هذا اللي تكلني عمر باري قل وإلا أوجعت يور هذيك أنا أم كرباشي هذا وانيكي ما قولش أريني سي أرينيكي كلهم كرباشي عمر بقى فقال يا أمير المؤمنين جئتك
shaakiyan waxaan kugu miisaan kugu ashkatoodo oo gabadheeda ugu ashkatoodo laakiin adiga oo lagu baacsan lagu eryanayay taada raxmadu iyo u baahan cid ku caawisay iskay daawil adiga u baahan iskay daawis qaala taal u fiirsi wada dumarkeen hiya mawduc shahwati wa markan u baahdo way ii joogtaa buu yiri xarunta ii korisa mariyaha ii maadha cuntada ii karisa gurigii bay kleen garaysaa mar haday yara carooto ala nasbiru alayhinna in usabram yani ahayn in rifq ya gentle ya kindness kula macaamilo miyani ahayn marka the first thing waxa weeye inuu qofku la macaamilo xaaskiisa si raxmad leh waan ogahay qaar baa oranaysa allahumma hawalina wala alayna dumarka qaar baa laga ducaysta ورق باجر مساكين أغنها والله إلهي وكو ابتلية دمر أدمود السد إن وين ويتيك جهنم لا قدر يا مكان الإنسان ورقي كدادين كردادين في ديرد أو نينكي أنو إلهي سبحانه وتعالى كعابد الكرم مساج كانوا كذي كرينين وأنو غير كيس بحيل كرينين لكن دمر أنتو ضد بدني كو إلها كبقية مساجد يمادا حلقة يمادا جلبابك حجابك نقابك حلال وحياباكم والرقمان من كان رجل وحين لنا نكون ويرك هادين إن شاء الله طلبات أباهن الرفقه وعرورت هنا وآدي أباهين they have to be يعني علمه هو إنه درما إنه أبا يهوي وليه أبا يهوي إنه وليه وإنه درما علمها هو the moment مركو قف كلا أطهر المشاكل كيسة إن أفكار كيسة وقف كلا لا دونتو خلل بقولي كشرا خلل وين بقولي كشرا هو يمكن يبرق يخرى يحتى إمك ضدك وين تودا بدني gacantu way naga soo horeysaa ilmo Soomaaliyeed aan ka oranaynin in marba la dhibaaxay ama dacas lagu dhuftay ama kaba lagu soo tuuray ma jiro way tarbiyadeena saas ay ninkan lagu soo kariyay sidii ninkan lagu soo kariyay waxa weeye ilmuhu markuu qaldamo in la yar karbaasha Soomaha xitaa macallimiinta karbaashi jirtay macallinka wuu soo karbaashaya marka macaamada ka timaadid dugsi yar baas ayaa ku qabanaya luuqi yar ku soo garaacaya gurigii baa imanaysa islaantii odayga garaacaya beeritaanka shaqada ka bilaabay hadana waad ka lahaasa macallinka ku soo dilaya dhexda mid baa ku soo dilaya guriga hadana wuu ku soo garaacaya marka wuu baranay halka ma inuu nimi tii ku inuu dhareen kan wuu garaacan Soomaha laakiin is different حديث النبي أفيرسو نبي عايش واحد النبي صلى الله عليه وسلم ولقي المودلين وحين بهاني مكان إنه الرفق في الدعوة مركين الدعوة ده في ديننا قف كان قال كأ إن مركز تعديد يعني قارب لأن يرى أركان أنت خميس كجاب سدين قلتين الله بحي هل كان عدد يركتها جزاهم الله خير يكون he's a كافر وكافر كلمة ده قاعد كه don't talk to him like this don't talk to my brother like this وصوب بدنا كسينا فرح هذا قال كه that it should not be the way it shouldn't be the way we will talk about عنك التجارة والنبي صلى الله عليه وسلم ولما عمل كذا لكن in every field وحنو بهنا إنه رحمة iyo in dadka tusno in gentleness waxa kale loo baahan yahay qofka jaahilka ina si rifq loola macaamilo rifq nin la oran jiray Muawiya bin Hakam as-Sulami ayaa ka sheekeynayay ku dhacday waa saxaabadii nabiga waana xadiiskan waa sahih sahih al-Albani wa ghayri wuxuu yiri masaajidkan soo galay masaajidkii ayaan soo galay nabigu sallallahu alayhi wa sallam dadkii buu tukinaya nin igu ag tukanaya ayaa hindhisay nin baa hindhisay markuu hindhisay waan salaad lagu jira hadda ayaan ku yiri yarhamakallah
قال فرموني الناس بأبصارهم ويصور إيجان فقلت وحن كولي ثكلهم مياه وهو يدق قبل أنت محيقة سوء إيجسان قال فأخذوا يضربون أفخاذهم بودي هو يقراعي ما كان وحن وقالي وحن فهمي إن لي آموسين أيوه وأن آموس فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ملك النبي والصلاة ديسي وكسر بحي قال فأمي هو وأبي أبها هو يدبان يعني وصمينا يا فدية وفداك ما رأيت معلما أحسن منه معلم كون نفسين ويلقى معرك في حياتي متكهري متكدن بيتونا فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا شتمني إمو نعبيسا إمو دلين إمو عاين سوى نفسه وحي قشها قفك جاهلك مركا قفك جاهلك إن سوى نفسه وحي الله وشها أي دينته إنه برزق مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحي لي الرفق مركا قال تيمادو وحن حسني حديث في صحيح البخاري ومسلم حديث عائشة يا النبي كوك دبق قباني سيوي فردي رضي الله عنها يهود النبي مركا أتمي فقالوا السلام عليك يا محمد نبي محمد السلام عليك يعني هو كوك وكذبق وديمو وكشف وحباش أو لغو آس سامنا هو صن أما هو مس السلام عليك نبي هو آموسي قال وعليكم مو عين نبي عاشوا قبل يرى وده النبي جعله حمد يحرارة يود الدين شعيل يو إن آياتك أنت سوبر دويت وعليكم السلام يا أبناء القردة والخنازير يونيبت كاش قال ما هي عائشة أكاذب يلي صبرا ما هي عائشة أكاذب فقالت أما سمعت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا وحي هذا لم يرد ما قال أما سمعت ما قلت وحن عنه يقول ما قال قلت وعليكم مركز وحو بري عينك تذكر لما عامله وحو يلي يا عائش ما وضع الرفق في شيء إلا زانه رفق قبولي مركز وحل قدره وقرحية وما نزع من شيء إلا شان مركز لقى السيو أو لقى السارو وفال حمية إمك الدين تأنه وحبك قرح بدن وحبك قرح مش يسمها نظام كقرح بدني مجره نظام كم متكامل مجره نظام كون أكسني مجره قفك واحد دين تكبرس عينك بالله حلو عينك خميسك الله حلو عينك ساعد الله حلو مسقش عينك الله قال قاعدك عينك الله فورا إن قري عينك السوق قشيد قبل عينك دوله هذا لسيد عارض وحول كبرس دين كون أكسني يسيسم كون أكسني مجره هذا نك قال هيك قد عينك ما إن الدين كون أكسنتي كوقد عينك ما إنه وايو إنك أي رفقي إنه لو قبهنا أي نصوبان بين مركز سورة قلد أي نجا هيستان أنتوا ده بدأي سورة قلد نجا هيستان وحكم ذا كله تضبط سنة لما يدي كله لما ما يلا عاوة وحكم ذا تصدحات تضبط المكان نجا حسابيه وصوك قابيني وقت يقول أرد يعني إن الصبر والحلم صبر إنه قفك صبر يا patient صبر لأن ميل قاعد منه نبي وصفر صدق حادثة الإفك remember حادثة الإفك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحي هذين وساحر ووات كيست وحي هذين وكاذب ووات كيست وحي هذين وكاهن ووات كيست وحي هذين ومجنون ووات كيست وحول بويكول هذين ووات كيست النبي صلى الله عليه وسلم لكن مد بوات كيسن كرواي وحوات كيسن كرواي قبل نيسي وشعلا أي زينيستي وي زينيستي يعني نبي واحد في الدنيا وكل الله وقعد كذبها عمر بن العاص محيري جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي الناس أحب إليك يا رسول دمرك يضيطك يقولش عشاء فقال عائشة نقولش علي
قلت ومن الرجال رجنا قال أبوها أدوك حقوق شعلا وعايشة أبهد قبل أو شعلا أيال ويزيني ستي ويزيني ستي أبهدنا دم حكوا كر أبهدنا وشعلي هدو إن أنت فرو هذا أدقيبا أيو وحيالية هدي إن أنت وهينا ده وحلي ويزيني ستي وحي صوت دقيقة أرنتك العدينا ما تشيلوا بلدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسلا كتير منبر كوكري مركا فصعد إلى المنبر فقال من يكفيني من لي برجل يؤذيني في أهلي وريا إيجا قبانية نين خير كي سو صفر فريي سعد بن معاذ باكع فقال يا رسول الله قل لنا من هو نوشك نكاس عدي هاي إن كان منا كفيناك هدو نكاس أنك نجا مدي وياهي وديت يهرق أن قراء أنو نهاي أنك كاغفرا يا رسول الله وإن كان من إخواننا كفيناك هدي وكمدي هي ولا الله يدنا أنك أي كاغفرا أي يقول إذا نوشك فقام سعد بن عبادة قال كذبت فوالله لا تمسه وحناق مركز سعد وحن قادتي فالمرء وحن وقت غيره لين أنك أيها تابن أيها ما تابن كرتيل والله وإن هذاك ما تابن كرتيل نبي نوح وده إيش يقول له عيني صاحبة الإفك حادثة الإفك وعبد الله بن أبي بن سلول أمير المنافقين مركز عبد الله بن رواحة كعي مركز لا يا رسول الله نوش عدي هاي والله عوان سوق من عدد هذا صحابة دي مركز هل كان بيتبكسوا بودا نبي صلى الله عليه وسلم دنيا إنه أسو أرجويو هل كان بيتبكسوا بودا نبي نينكي دنيا نديرو ودودية مركز أرنت قصد نبي جيبا السيري خلاص شيء كذا لما تبحولي لا عليكم وسكدة من بركي وسكتة ويصبر صلى الله عليه وسلم مركو الصبري وبلدن عنك الصبر النبي صلى الله عليه وسلم أي فرج كسودك وحي كسودك قفكم مسلم كمرك هدو الدنيا إنه النقطة successful هدو الدنيا ناجح النقطة وإن الصبر لجهلا صبر وإن لجهلا نبي يوسف عليه الصلاة والسلام شير ضال قطورة من غير إثم من غير دم سجن دم بيجلين أي شير قطورة صلى الله عليه وسلم والصبر أعرابت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اخرج إلينا صبح قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا رجسي هاين دي وحين رج إن صحابة كملوا أو إن صقر وهايستيني دين توحكر لين نبي صلى الله عليه وسلم سي الصبر أيولا معاملة كذا أذوق مركا غيرك يرتادي يرد تاقلده يركا يقول تاقلده إن إسلام تقول تاقلده إسلام تبقى كو تاقلا وحلو بهاي what is necessary and is needed is patience. If you don't have patience, if you don't have sabr, then there's an issue. مش مشكلة بإيمان أسا 7 quality قفك مؤمن كو باهي هنا and there's more than 7 لكن 7 كيس دورتي صبر هو extremely important. Extremely important. مقالي ده واحد شري نين سبحان الله بنين كالصبر يجيسه والله ويجي يابي وحها باكستاني مريكن دقناه وحولها صدق حبلات يلا بإنه يرير ننكني صلاة المغرب يا صلاة العشاء يا صلاة الفجر he brings his boys to the masjid. One of his boys is like يركز وحنا كنا مساجد كا مد بس تحشرة من هو شنشر ولا من هو وعنكا مر يقول كان نوضح حلقات بو عرته وسمية صبر وحب هذا الصبر والأكثر مركا يعني مره صبر قاس دري الأركسة عرته القرآن أخريا وشقتها عرته سكول متى قولي أيوة حقول لك Islam تبع أصلي she teach them in the house but مركو صورة وحى أيه he teach them Quran يا Islam at home أي يقول لك إن أنت سيقول مركو اللي يتوبنشير هاي أي هاي سكول كده مايس هاي سكول كده مايس اللي يتوبنشير مركو هاي أي يقولي إن أنت جامعات دجالية إن أنت حافظ القرآن
suuq may gelin school publica may gelin ma taqaano waxan dadka kale ay wada yaqaanano saaxiibo xun uu ka ilaaliyay sabrigiisii subhanallah carruurta inantaasi dhashay ayad markaad arkaysa inay yihiin carruur saalixiin كل هذا إيش والصبر وصبر كذلك دعوة طلب العلم فردنا حلقتها فردنا كل وحي أباهنتها الصبر قف بلا صبر من المقاريون نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة والصبري مركو الصبري 23 years تصدح إيا الله وتنسون كبعد أيوة أركن مليه دعوة ده صلى الله عليه وسلم تأفرات يقفكو ولو بهينو يا دقات كي وحوي السلام تحية الإسلام تحية السلام عليكم وايو تحية دو واحد لا هاي دعاء قونية وربل ورمى شيء كذا معها ورمى معها وهذا محل نقول بريست لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعودي كان تجا السعودية aad baan u tagtagaa marka I go in marka dadka Soomaaliya wadaadada ahayni markan dee aan kaco assalaamu alaykum ma ilaahda markan soo noqdo assalaamu alaykum sidoo ya sheekh أكثرت علينا ولا بفربوا سلامته كلهين شوي خلاص رحنا ما صدق يمكن نلف اليوم فربضنا سلامته هذا لكن وحوي صحابته مركو جيت سدا وكلا دخ لبد الصعوده marka sida ay geed soo dhex galo ay kulmaan haddana xaggan wayse salaami jireen dhagax baa kala dhex gelaya wayse salaami jireen maqsuudku yara gelaya wuu soo baxaya wayse salaami jireen waayo waa tahiyya ilaahay subhanahu wa ta'ala dasaga qolka nagu sheegay wa idha huyitum bi tahiyya hadda laydin salaamo salaan ka wanaagsan sameeya ma salaan iska caadi waliba nabi aadam alayhi salatu wassalaam markii ugu horeeyay ee la abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala muxuu ku amray inuu malaa'ikta halka taagtaagan inuu u tago wuxuu markaa ilaahay wuxuu ku yiri qala idha fasallim ala ulaika nafar min almalaa'ika kuwa halka taagtaagan malaa'ikta soo salaan fastami' ma yuhayyunaka bih فإنها تحيتك وتحية ذريتك waxay kugu jawaabaan si kula salaamaan salaantay kugu salaamaan si wanaagsan u dhageyso dhagta u dhig buu yiri waayo waa salaantaada iyo salaanta tafiirtaada dhurriyadaada maxay ku yiraahdeen qala faqalu assalamu alaykum waxay ku yiraahdeen assalamu alaykum wuxuu ugu jawaabay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبي وحيين لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا جنة أما قشان مجلسا إلا آمنتان ولن تؤمنوا من آمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا إلا استعلاتانا آمين ما يسون ده إيمان كامل إنكم هليو أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم ورميدين تلمام واحد دي أقول قنتان استعلان إنسان أود مركة شنده جلسان أوده محيل مركة قالوا نعم قالوا محيل مركة افشوا السلام بينكم والسلام عليكم سبحانه السلام عليكم وإذا كنا حسيتها سوما نبي صلى الله عليه وسلم نبى أصو قلي مركاسو يري السلام عليكم نبي يقول عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام 10 طبعا قرأ متكلا صو قلي وحول السلام عليكم ورحمة الله وحول وعليكم السلام ورحمة الله 20 لباتا قفصو متى دحاد بصوغري فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركب فرسولي صدم قبصو ومحي وحد السلام عليكم وطبعا حسن دو السلام عليكم ورحمة الله واللباتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدم حسن دو مركب كورن قف مركب الهديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتر الهديد
intuu 30 xasanood shaqaysan aqoon war salaam baridina horta salaataad fara badana intuu ajar shaqaysan lahaa uu ka faa'iideysan lahaa ayuu adiga taalac ku raacaya waa qalad waxa laga fiilay marka inuu qofka wa alaykum wasalaam kama fi riwaayad laga soo wariyay xadiidkii ama atarkii laga soo wariyay Umar bin Khattab inuu qofka wa alaykum wasalaam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh inuu ka dawagayata ila waxaan marka la salaam fa ida huyitum bi tahiyya dadka salaanta ku celiya aw ruduha ama yasita ku celiya ama la kaalay bi ahsan minha mid ayda dhaanta salafki rahimahumullah intay suuqa baxaan ayay dadku soo salaami jireen shaqo kale uma bixi jireen they would only go outside just to say assalamu alaykum yani Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma intu kallaho subaxdii ayuu saylada tagi jiray oo suuqa tagi jiray waxba muu soo iibsan jirin waxba muu baayici jirin waxna muu iibin jirin suuqu musaa soo mar assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wala salaami jiray nabigu u fiirsada khudbadii ugu horeysay uu Madiina ka jeediyay muxuu yiri qala ya ayyuha an-nas afshu as-salam ya ayyuha an-nas afshu as-salam wa is as-salama is as-salam assalamu alaykum lahum tashanad qofku muslimku u baahan yahay quality inuu u noqoto waxa weeye waxaan la yiraahdo it'aam al-miskiin it'aam ma miskiinka it'aam inuu qofka cunto la siiyo it'aam markan nabi wuxuu yiri xadiidkii imka soo aan taabtay wuxuu yiri ya ayyuha an-nas ifshu as-salam wa at'imu at-ta'am wa at'imu ta'am you know طعامكم ما هو للفقراء لكن وللجميع for everyone it's for everyone أنا جوجا هيوستن تكساس أو الميرة يعني extremely وحنا عربانها أي وحى يعني لها صور يقصر دقي إنه يصور هديه نين سعودية نين قال سعودي يقولون محو نو سمين شري وحكوا إنه مو سمين شري جمعة أول با أنتو نوضا ييرو بل يرادا جامعة دور أنتو اسكو ييرو أيو جمعة أول با أنتو نو سمين شري هذا هو جمعة أول با هبين نمدا وإطعامك مركزانو اسكسو بوحين شري قريقيس طف بيه مرق ماشي هيلي با دوليا يا عيرمود وهيلي لما كفتما يوم marka waan soo xaadirin jiray habeen walba waan iskeenaa jimco walba waan soo xaadir cid nooma yeedho shويه wuxuu noo sameeyay after salat al-isha ayu darsiga noo akhriya darska wuxuu dhex geliyaa salat al-isha iyo cuntada mid dhaqaaqaya ma jiro way cuntadii baa hadhay wali moogta mid meel tagaya ma jiro halkaas wada fadhina digsigu karaya cuntada waan orinayna yani halkaas aan khushuuc baan ku dhageysana daraska yani daacad baan naga wada hay ikhlaas مش إخلاص لله إخلاص للطعام عنطاد أيه مخلصين وهاي كمان لقيسنا شنتي مير توين مير بين نقطي طبعا كي مير لباتن مو نقطي لباتن كي نصاع نقطي نصاعي ساعات بين نقطي مد أشكتوني أورا درس كوديري هاي أما هو بورين أما هو محمد حكاه الله يمشرو واني والبحر وعد وصلت هلي بكا يمكن تاير دقيقة إنساني والبعاد أنا وفر لي مركا ماشي محي كيني كذا مركا تي وصلت هلي بكا إلى برضو عليه أيام بقى أنا ما نفر لي يقول لي الما يربنها يقولي أنت سعيد قلت له أيوة قال أنت حتصير إمام بعد نقانا سبي يقول قلت له تمزح واتكف تمزح الشيخ واتكف تمزح أذو مركاو طبيب بوي لقى طبيب كيف حنودي مركا إمام بعد نقانا سا أنا إمام نبدأ إمام قرّا اخترني ما يقرن هل كان بقول مركا صلاة توكي
ما تكني ما الصلاة عشان ما تشوفوا ما كعاو هيلي ولا عناية ما تشرب هذه أنا صلاة كسارين هيلي ما تشرب ما كسان كذا دب جمعة هذا ما هي نهاط جمعي دمو يقدر جزاه الله خير جمعي دم يا الله وضع فريستي ويشوك تقولي نتوكي نقصار dadkii markaa ilkaha la igu soo wada eegaya way hilibka ka uraya waan kacay markaa salaadii ugu horeysay aan jamac tukiyo taasay number 1 hilibana igay soomana hiliba igay waan kacay waxaan ugu talagalay marka intaan alxamdu akhriyo inna a'tayn laba goor uga saaro marka la kala yaacay meesha ilan badowaan cid waliga ma tukinine marka nidi Allahu akbar mihrabka ma imaamadu ma garanayay markay barbaranayaan xitaa iyo mimbar wuxuu leeyahay haybad buu leeyahay mar Allah li marka Allahu akbar ayuu wadnihi boodboodi buk waxaan noqday nervous anigi wadnayga oo dhan boodbooday aniga baa rabaasay aniga baa ciyaaray marka faatixada akhriya faatixadaydu waa faatixa go'aan alxamdulilaahi rabbil aalamiin bal waan ooyaya waa faatixa shahadanaysa ilaahay horta jecel markii aan wala daalin ina a'tayna halkay soo dhigtay moogtay markaan wala daalin ayuun baa leeyahay aamiin ina a'tayna iga luntay ma Allah la yeemana ka soo qabto kitaabkii ilaahay wuu cadaaday safxad xitaa aayad waan garan waay ilaahay wallahi aayad ma soo qaban karin waay aayad waxay ku qabatay faatixada mar labaad ma ugu celisaayo soo lagu qabsan doonaa marka wuxuu ilaahay ugu soo dajiyay aayad suurat al-maa'ida marka xafidi jiray yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu maada ujibtum taasoo ma igu soo degtay tiiban garaa tiiban jajabi tiiban meel ba ka tuuray waxaan u maleynayaa inuu dadka ku yiri cid saxi karta ma jirto cid la hadli karta ma jirto aydi waa burburiye wuxuu ma noqday Chinese oo quraan akhriyaya wali yibille wax Allah iyo waxaan khayr marto waan dadkii waan daadiyay Allahu akbar waan ka saaray salaadii assalaamu alaykum at-tahiyatka nusba ku dhameeyay markan salaadii ka soo baxay ayuu sidaa ayuu la ilaaha illa Allah imaam ninka ka wanaagsan weligii ma aragteen ya ana waxa banaysa waa lagu rifay si digaagad yar waxa lagu ilaahay ka maqays kowle ninka yaani ta ay talaabadu ugu horeysay marka maxaa waxa asoo iigeeyay uga sheekeynaya waa wasada hilibka marka it'aamku waxa weeye waa wax dadka soo dhaweeya u fiirsada idinka مساج قدرت الأحضان حلقة باكرته أما الدرس كبحية أنت رك كسو حاضرة صارت وا ده إلا يتضبط سديت سما ثم ركوي بدين جزاه الله خير لكن واحد كتر هذا وصل هلي بثلا ماشي وأروس بكتير ما ده وهلي بماشي يلا مساج وعمري تذكر محاكيني دواء إطعام نبي صلى الله عليه وسلم مركي وهو الرئيسي والدنيا إنه دين الإسلام وصوبا لقوا وشاع كقاضو دي محوك بلاوي إنه غير كيسي عنت أسمية أبو لهب مركاي اللي وحبو يرقوا أي حناقو حطلي نبي صلى الله عليه وسلم موضوعه وقصة تلقري مفرن وسكام عنت دي بلعني ولا كليان
ووقع علي مر لباد عنت لباد بو سمي عنت ماشي dadka keenaysa ogsaanaada عنت لباد buu ugu celiyay markaasuu shaaca uga qaaday diintii islaamka uu yiri nabigi ilaahay baan ahay labada goor buu cuntu sameeyay nabigu sallallahu alayhi wa sallam waayo cuntada waanka nabigu muxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam markuu yaani wanaanay dadka salaada ka maqnaada cishaayiga iyo fajriga haday laba wasad hiliba haday ku egmid wasad hiliba masaajidka way soo gurguuran lahayn waayo cuntada dadka way keentaa marka qofka mu'minki sifaadkiisu waa in laga helaa inuu yahay qof kariima oo dadka cunto u sameeya waa sifaadka ku teerigare jaarkaaga soo gaaran lama wada deganin dad wadan gaaran deganahay ku teerigare jaarkaaga dad maalin cunto u sameeysid next day cunto yar geysid next day aad wax yar u dirtid third day fourth day waa arkaysa koronay wow what is this generosity nin aanu reer Canada oo reer Montreal ayaan ku dhacay kibad u muslim Abdul Wadud baa oran jiray aan ka dum nin iska dhalo oo in xoog weyn oo ma sha Allah markaas oo ma sha Allah nin wanaag qurux badan oo saanad ma sha Allah markuu khamiiska soo xidhana waxa oran sabaa Allahu akbar saakun how do you accept Islam markaasuu yiri laba nin la shaqeyn jiro muslimiina laba nin la shaqeyn jiro labada nin markay kaafiga doonayaan kaafi bay isoo qaadi jireen markay sandwich iibsanayaan ana mid bay keeni jireen markay lunchka loo baxayo way ka xajay cunta ay geesay wali diinta islaamka wallahi cunta ay geesay cuntadi ayuu xidhay okay why are you guys so generous maxaa generous u tiino dadka kariimiin u tiin sayidadin diinta yada ayaa ay kaasa tell me about your religion bankuri diintiina iga warrama sidaasan muslim ku noqday marka nabigu sallallahu alayhi wa sallam markuu yiri afshu salaam wa at'imu at'am isku xigsiye labada dardaaran waxbuu ogaa sallallahu alayhi wa sallam talixad ana soo gunaanada insha Allah soo gaabin doona talixad waxa weeye qofka looga baahan yahay inuu noqdo qofkii doonaya effective uu noqdo oo dadka uu bedeli karo uu khayr soo ziyaadin karo waa cilmi ilaahay quraanka waxa qora uuri i weydiista inay idin kordhiyo oo nabigiisa ku yidhi u jeeda waa cilmiga wa qur rabbi zidni ilma mooran zidni maalan zidni abnaa zidni wuxuu zidni ilman ilmi i kordhi marka waxa loo baahan yahay salaadii maqribna kulli fuwayna soo food saartay waxa loo baahan yahay qofku marka cilmi u barto waayo cilmi haddii cilmi hayna xikmad mari haddaan xikmad lahayna dee cid ma hagi kartid bari waxaanu tagnay cilmi la'aantan ku sheegaya annagoo yar ayaa waxaana la geeyay mataqaanaa qolinka tabliiqa jaama khair qolan tabliiqada tawaafuna fil ard meelaha masaajidka taga ayaanu raacnay waanu yaryarayn cilmi ma lahayn waanu raacnay waxa ila socda marka midanu ilmaadeernahay oo la yiraahdo Khalid waxaanu bixinay weatherman ma taqaan weatherman ka wada isbedel badnaayo anaguna tabliiqaanu jeclayn asna maalin walba intuu isbedelaayo maalin wala raaca maalina wuu nacaaya marka weatherman ma bixinay annakaas waan israacnay waxaan u tagnay marka nin Lubnaaniya oo khamri cabaya بير بو مركا عبيايو بير مركا الله هذا نحن وحنا لنا يا اخي تعالي الى المسجد كالي المسجد come to the house of Allah fear Allah مركا خالدو واد شو هوست كير غوخيسا واد حناقسنتي اد بو حناقسين نينكا بيركا عبا يده ان بو حناقسن لكن دي waxaan islahayn waqti lagu hadla ma joogtaan Khalid ba intu miis ku dhuftay gacanta ayuu kaay markaasuu ilaahay ka cabso markaasaan wallahi maanta runtu u sheegay wax oranayaa khamrigana waa xaraam caanka markaasuu ilaahay ka cabso gacanta midig ku cab khamriga da khamri cabaysin maxaa meeshii keenayta maxaa bidix iyo midig kan khamr ba meeshii yaalee waxa way cilmi la'aan baan haysanaka waxaan lagu qofulay
dembiga waxaan is ag dhignay dembiga khamri la cabo iyo bidix waxa lagu cabo waa isku mid haddaan tambaabo asagu wixii tambaabo labada weyn marka talixaadu qofku muslimku u baahan yahay waxa weeye cilm qofka haduu bila cilmi waa bila xikma haduu bila xikma yahay cilmi ma hagayo ta ugu dambaysa kulli waan gunaanadii waxaan ku soo gunaanadii waxa weeye al-ikhlaas runtii walaalayaal al-ikhlaas waxyaabo farabadan ma ayaad ku hagaajin kartaa ikhlaaska biidni illaahi subxaanahu wa tacaala arrimo farabadan ayuu haddii niyadooda ay hagaagsan tahay sheekooyin farabadan baan wallahi idin iyo qisas farabadan baan ayaan soo arkay oo la soo noolaaday runtii niyadda ilaahna waa ku quraanku ilaahay wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun marka waxa loo baahan yahay in ikhlaaska la sameeyo itcaamka quraanku uu sheegay lagama dooniyo waxaan laga doonaya ikhlaaska lillahi subxaanahu wa tacaala toddobada haddaa ko camal fashaan aynu kooda camal falno insha allah meed baynu gaarina ilahayna ha naga raali ahaado aquulu ma tasmacuun astaghfirullaha li lakum